daawadayaal waxaan hadda la taagnahay Iqra Saciid Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo maantay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ku soo dhajisay boor ay ku dalbanaysa in loo maalgeliyo fikrad gabadhan Soomaaliyeed ay leedahay oo maalgelin loogu sameeyo dabcan iyada fikradaas iyo ujeedooyinka ay ka leedahay iyo arrimahaas oo dhan aan kala sheekaysan doonaa Iqra ku soo dhawow telefishinka Shabeelle waa maasantahay walaalo waan dhawahay waana idin mahadcelinayaa waayahay boorkan aad soo dhajisay iyo bal arrimahaas naga dabagee waa maasantahay aboowe waxa soo dhajiyay boor dabcan boorka aan soo dhajistana waxaan ku dalbanayaa waxa waaye inaan helo garab ka helo ummadda Soomaaliyeed maadaama aan ahay qof dhalinyaro ah misna wax bartay misna dalkii jooga waqtina ku bixiyay inuu wax barto taas waay fikirkaygu waana bulshadan ka dalbanayaa inaan ay siiyaan garab waayahay marka waxyaabaha la doonaysid in lagu maalgeliyo si hordhac miyaad noogu sii sheegi kartaa mise waa mar kale aad nooga dhigaysaa waa maasantahay kallay waxaan hadda uga baxayaa waxa waaye inaan fikir ganacsi wato rabana in la maalgeliyo intaas uun baan uga baxayaa wixii kaleeto oo sheegidna gadaal baan ka soo sheegi doonaa haddii la yiraahdo dabcan marka rajada hadda aad leedahay intee bay la eg tahay oo ku saabsan in fikradaada maalgelin aad u heshid waa maasantahay walaalo hadda boorkaygu wuxuu dhagsan yahay waxa waaye wax ka yar 2 saac xaqiiqatan ma aamini kartid inta qof soo wacday oo teleefankayga zaa'id loo wacay ma dad mise shirkado way isku jiraan dad shirkado macnaha shirkado iyo dhalinyaro raba inay dhiiri galiyaan iyo waliba dad iyagu raba inay garab siiyaan laakiin wali wax sax ah oo dhahay waxaan ku siinayna ma jirto laakiin waa rajaynayaa in iyagana ay imaan doonaan hadii la yiraahdo insha Allah waa rajaynayaa inaad heli doontid maalgelinta aad u baahan tahay walaal insha Allah aad u mahadsantahay TV-ga Shabeellana waa u mahadcelinayaa fursadaas siiseen mahadsan dhabo waayahay daawadayaal sheekooyin ku saabsan Iqra bal mar kale ayaan idin wadaagi doonaa iyo wixii ku soo kordha